waxaan ballan qaaday oo visionkayga ama aragtideeda foga ummadda Soomaaliyeed inaan rajada ku soo celiyo rajada ummadda Soomaaliyeed ee doonayso waa nabad iyo nolol weeye nabad iyo nolol haddaysan jirin ummad ma jirayso waxaana bays u ah nabad iyo nolol koow waa idiin sheegay danta shakhsiga in laga guuro oo loo guuro danta guud waxay tahay oo aniga iga bilaabatay oo idinku aad igu taageerteen inaan idiin keeno saan idiin ballan qaaday ra'iisul wasaare iga wanaagsan ra'iisul wasaarahana ballantii waa fuliyay wuxuu keenay wasiiro ka wanaagsan wasiiradana waxaa looga fadhiyaa bacdama 60 bari ay joogaan inay keenaan shaqaale ka wanaagsan ballantaas midii fuliyay ballantaas kuwa ku xigana aan idiin sheego aan idiin fulinay ammaanada koow waxay ka ahayd wixii aan ballan qaaday ammaanada ummadda Soomaaliyeed waa kala shakis waa la kala fogaaday waxaan isku diray qabiil iyo qabyaalad iyo xagjirnimo ammaanadu waxay tahay wixii aad noo dhiibateen inaan siday tahay kugu hayno oo aan isku keen hayno oo wadajir iyo midnimada kugu shaqayno wixii aad noo dhiibateenna si fiican kugu maamulno oo aan la dagaalno musuqmaasuqa aysan jirin shakhsi keligiis gaar u naaxa oo aad kulli nolol wada heshaan oo nimcada ilaahayna siiyay khayraadka dalkan leeyahay oo idin soo wada gaaro macquul ma ah mana aqbalayno waddankan barwaaqada ku jirta in wiil Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed ee gaajo ku seexdaan mana doonayno waana ka dagaalaynaa riboorku idin siiyay ra'iisul wasaaraha waa bilaaw waxaan idinkaga fadhiyaa idinka dulqaad yaa idinka rabaa iyo wada shaqayn inaad sii xoojisaan inta hadda aad naqasheen oo 60 casho ah waxaan idinka ballan qaadayna 4 sano ka bacdi inaan noqono dowladaha ka magacaaban Afrika hadduu Ilaahay yiraahdo waxaad maqasheen inaan la dagaalanay musuqmaasuq waa maqasheen waa bilaaw ma dhow hawsheeda dalkan waxa meesha istaajiyeen arkaysaan waa musuqmaasuq markaa arkaysaan argagixiso ama xajir waxaan naaxiyey waa musuqmaasuq markii loo diiday askarta forashii ku jirta oo kaneecada ku leeyahay mushaharkooda waa musuqmaasuq markay idinka mushaaradina lidii diiday ama shaqaalaha dawladda rayidka loo diiday mushaaradooda waa musuqmaasuq lacagtu way jirtaa ee qof jeebkiisa aad waana joojinaynaa ammaanada noo dhibateen waxaa la socda amniga wax kaligeen annagu aan samayn karna ma aha waa wax noo wada yaalla shaqo noo wada taalo weeye amnigaasi wuxuu ku xiran yahay idinka ciidamadan haysana tiradooda waa taqaanaan guri walba iyo geed walba ma istaagi karaan idinkaa la rabaa inaad u sheegtaan xogta meesha cadowga ku jiro meesha qofka qarin dumiska uu ku jiro idinkaa la rabaa inaad usoo sheegtaan amniga markaasaa laga rabaa inay gareeyaan oo ay qabtaan waxaan uga mahad celinayaa shalay magaalada xaafadda waa bari miinadii ninkii ku aasaayey oo qof shakhsi ah oo reer waa bari uu soo sheegay haddii arrintaas ay badato qof walba uu magaaladan degan oo reer banaadir uu xil iska saaro oo uu sheego kuwa guryaha ugu jira oo sharwadayaasha ah waxaan idin sheegaynaa 6 bilood magaalada nabad inay noqonayso insha Allah waxaa kaloo idin sheegaynaa annagu waxaan u taagannahay ballan u qaadno oo aan dhaar u marnay xasiloonida magaaladan yaan dhaar u marnay xasiloonida macnaheedu waxay tahay magaaladan bilicdeedii quruxdeedii iyo sharafkeeda inay soo noqoto inay la tartanto Kenya Nairobi inay la tartanto Addis Ababa inay la tartanto caasimada adduunka ma kula tartami karno iyadoo qoroono magaalada dhexdiisa ay marayaan oo qoryo culus ay saaran yihiin oo shacabka lagu leenayo kulama tartami karno qofkii askari ah oo qof shacab wax u geysta ogaaw waxaad ogaataan tiirkaa kuu dambeeya maxkamad baa lagu saari waxaa kuu dambeeya haddaad qof disho
ما وحكومة ما يشتير كنا استاجيس عيد ما قلب كثيرة واحد عيد ما قلبه سيدوته شعب كيننا إلى لسان إنا احترامتان إنا الله شقيسان إيجاد وحكوته هذا ليسان والحرمة الرئيسان يا دولة الله ينظر يا ديكو عيد وتيه شعبك كيس الليتا هلا قالوا كيس تبردرن ولا حق درن ياي حقيس هلا سيو كان توغا او خاينكا او قرقدس كان قبطه xoogina kaas ku bixiya shacabka ku bixinina xasiloonida waa taas marka in qof walba uu sharci u hogaansanaado ma aha qofkii qori haysta inuu ka awood badan yahay shacabka iyo dowladda ma aha waxa weeye qofka qoriga haysta oo ciidanka ah wuxuu qorigu u haystaa difaaca dalkiisa iyo ummadiisa intaas aan ka fadhiyaa waa ogahay hawl fiican baad qabataan maalin walba waa u heelantihiin difaaca dalkiina laakiin khaldaadka dhacaya iyo kiina xun oo ku soo jeesanaya maatida ama dhibaateynaya hala qabto maxaa yeelay magaca dowladda iyo magaca ciidanku wax u dhimaya hala qabto ammaanka la dagaalanka argagixisada waa naga go'an laakiin waxaa nooga horeeya inaan leenahay walaalaheena tihiin caruurteena tihiin ilaahay idin soo hadeeyey noo imaada annaga siinayna waxaad u baahan tihiin dowlad fiican waa haysataan dowlad aamina waa haysataan dowlad caalamka la xisaabtanta waa haysataan ciidankan amisom nala jooga walaalaheena oo na difaacaya haddaad dhibka joojisaan guryahoodan u dirayna joojiya dhibka ummaddiina ha laylina hantidiina ha burburina imaano noo imaano kuwa ajnabiga ah oo halkan u yimid inay ummadda soomaaliya u diidaan dowladnimo oo u diidaan horumar oo caalamka naga xiraan oo naga dhigaan soomaaliya inay tahay bahalgaleen oo ay ka dhigaan muqdisho meel aan la imaan karin waa iska kin ceelinaynaa ogaada dalkan waa idinka saaraynaa annagaa iskale dalka annagaa iska leh dadkuna annagayna doorteen waxaan ku shaqaynaa horeyna waa idinkaga sheegnay waa idinkugu sheegnay waxaan ku shaqaynaa oo ballanteena ahayd danta dalka iyo dadka iyo diinta ciidanka qalabka sidaad ahaan jirteen waa ogtihiin sidii laydinkaga yaqaanay africa waa ogtihiin maantana xaaladdan ku jirna waa ogtihiin inaan wax ka bedelno xaaladda waa ku khasbanna inaad xaaladda wax ka bedeshaan waa ku khasbantihiin oo aad qaadataan doorkii aad lahaan jirteen xaalad iyo duruufo adagaad ku jirtaan annaga waa idin garab taagannahay mushaharadiina waa idinkugu soo dagaalaynaa idinkuna dalkiina u dhinta qabyaaladana ka fogaada qabyaaladda waa tan soomaaliya qarnimadeeda burburisay ka fogaada qabyaaladda waad arkaysaa qabyaaladda meeshayna dhigtay in ciidamo shisheeya lagu kala dhex jiraan in 400 300 oo maxaan ku yidhaahdaa ciidamo xagjira oo dibadaha ka yimid inay soomaaliya u diidayaan nabadda waa aragtaan meeshaas waxaana gaarsiiyey qabyaalad ninka hadduu dareeska xirto calankana garabka ku xirto waa nin qarana qabiil ma aha maalinta qabiil aad hunguriyeyso ogow waad ka baxday ciidanka waana ku maxkamadaynaynaa waxaad u dhaaratay qaranka soomaaliyeed inaad difaacdo intaasaan kaa filaynaa waxaa noogu soo xigta cadaaladda oo aan ballan idinkaga qaaday ammaano iyo amni waa hawl iswadata oo hadda aan wadno cadaaladda soo fiirsada soo ogaada 3 bilood soo socota waxaan ka qabanay cadaaladda waa dhammaatay ummaddan soomaaliyeed oo dhibaataysan in xaqooda ay heli waayaan wax fiican maaha ragga odayaasha ah oo xaakimiinta ah waxaan idiin sheegaynaa haddii awal ay jireen inaad guryo xukuntaan 5 jeer oo isku rogtaan waktigeeda waa dhammaaday in hooyo ooyeysa ama qof xaqiisu u ooyaya aad dhibaataysaan waktigeeda waa dhammaaday cadaalad baa laydinka raba haddaad cadaalad keeni weydaan annagana ma madhashaan shacabka ma madhashaan dowladda ma madhashaan waxaad ku dambaynaysaana xabsi mar damba dhici mayso
oo anaa ballan qaaday oo dowladda ana ballan qaaday qof Soomaaliyeed intuu hortago maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo hawshaasi waa waxyaabaha dalkan meesha uu taagan yahay gaarsiiyey oo ilaahay noogu carooday oo aan adduunku wax uga hooseeno laba qof iyo saddex qof oo xun ka yeeli mayno inay magacayna isticmaalaan ummadda Soomaaliyeed ay duleeyaan ay dhibaato u geystaan oo ay xaqdarro ku sameeyaan u adkaysan mayno waa idinla xisaabtamaynaa haddaad hawl fiican qabatidna oo cadaaladna annagana waa idinku abaalmaraynaa aakhirana ilaahay waa idinku abaalmarinaya jannaad ku gelaysaan haddaad dhibaato samaysaanna annaga idinku ciqaabayna aakhirada waa ku dambaysaa arrinta horumarka dhaqaalaha oo ku xiran cadaaladda markii aan ammaanada idin ilaalino oo amni keenno oo cadaalad idin keenno dhaqaalahu waa horumari ummadda Soomaaliyeed waxay u jihaysanaysaa barwaaqo iyo horumar iyo nolol waa igu ballan dhalinyarada Soomaaliyeed oo 70% ah oo shaqo la'aanta hayso 4 sano hadduu Ilaahay yiraahdo inaan ka shaqeeyo inay shaqo helaan maxaa yeelay waxaan ogahay qaacidada ama formula marka laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo ammaanada cadaaladda laga shaqeeyo qof walba waa noolaanaya xitaa annaga bixinayna welfare wax la yiraahdo macaawin annaga bixinayna maxaa yeelay wixii jeeb shakhsi aadi jiray annaga u hayna qofka curyaanka ah qofka maskiinka ah gabadha agoonta haysata ilmaha agoonta ah kulli annaga dowlad u ah ilaahina anugu nagu xisaabtamaya dhaqaaluhu waa horumaraya haddii dadweynow shacab weynow aad nagala shaqaysaan dowladda aad kala shaqaysaan cadaaladda haddaad nagala shaqaysaan amniga nagala shaqaysaan maxaa yeelay markii magaaladan amni ay noqoto waxaa loo imaanaya maalgelin yaa imaanaysa maxaa yeelay dalkani waa dal khayraad badan dhaqaaluhuna wuxuu ku istaagaa 3 arrimood yuu ku istaagaa dalku waa inuu khayraad leeyahay dabiici ah waa leenahay dalkeenu waa buuxaa labo waa in dalku maamul iyo shaqaalo fiican oo hufan oo xirfad yaqaana uu leeyahay marka saddexaadna dhaqaaluhu waa imaanaya oo labadaas dhaqaalaha ku xiga oo capital la yiraahdaa way naga go'an tahay annagu inaan la tartanno caalamka waa naga go'an tahay midnimada Soomaaliya waa muqaddas ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaysan u midoobin danahooda haddaysan dalkooda u midoobin haddaysan diintooda u midoobin caalamku way ka harayaan caalamka waxaan kula tartamaynaa annagoo mid ah annagoo wada jira yaa caalamka kula tartamaynaa caalamku wayna fiirinayaan sidaan wada shaqeyno shacabka iyo dowlad see wada shaqeeyaan haddii ay arkaan in aan nala dhex geli karin waa noo soo istaagayaan wax alla wixii aan ka rabnana waa nagala shaqeynayaan annagoo siman annagu cidna u daba istaagi mayno cidna u daba istaagi mayno annagoo wax qabsan karna cidna u daba istaagi mayno innagoo isku tashan karna annagu waa inaan isku tashanno taasna waxay ku imaanaysaa dowlad fiican iyo dad fiican oo wada shaqeyn leh iyo ku imaanaysaa caalamku waxay u sheegayaan ganacsatadooda marka inay Soomaaliya maalgashadaan maalinta Soomaaliya maalgashi u bilowdo oo dowlad nadiif ay joogto iyo shacab nidaamsan waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano ah inay ka horumarayso dowladaha Afrika goolkeenu iyo visionkeenu waxa weeye 4 sano ka bacay inaan ka horumarno Afrika hadda yarsanina waa ka horumari karnaa waxay ku xiran tahay rabitaankeenna annagu ma rabnaa horta inaan dad Soomaaliyeed oo wax walba wadaag inaan nahay ma rabnaa inaan noqono dad Ilaahay ugu xamdi naqa inaan leenahay dal fiican inaan nahay hal dal inaan nahay hal diin Ilaahay muu xamdi naqi karnaa Ilaahay muu noqon karnaa haddaan intaas gaarno oo iscafino Soomaaliya waa istaagaysaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane madaxweyne khudbadaadii maanta waa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay haddana waxaan rajaynayaa inaad micnaha wax badan aad qabatay run ahaantii boqolka beri oo la soo dhaafay haddana waxaan kaa rajaynayaa inaad hawshaadi halkeedii ka sii wado hiil iyo hoon garabkaagaan taagannahay haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed.